isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga ah ee gobolada dalka oo maalmahaniba hoos u dhac weyn ku yimid ayaa saakii waxa magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle gabi ahaanba laga diiday in lagu ganacsado lacagta shilinka Soomaaliga ah. Ganacsiga iyo sarifka noocyadiisa kala duwan ayaa waxa ku yimid hakad waxaana magaalada Jowhar ka dhex guuxay oo si weyn looga hadalhayay lacagaha shilinka ah ee ay ganacsatadu gabi ahaanba diideen inay ku ganacsadaan. $100 ee lacagta Mareykanka ah waxa Jowhar maalmo ka hor lagu sarfayay 2,360,000 halka haatan lagu sarfayo 2,700,000 shilinka Soomaaliga ah waana tan dhalisay in isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga gabi ahaanba Jowhar laga diido. Ganacsigu waxa ku yimid saraka waxaan ka ganacsadaa ganacsiga yaryar lacagaha aan hayano waxay u badan yihiin lacagaha shilinka Soomaaliga ah. Marka aan bilaabay in aan ku ganacsado ganacsatada waaweyn waa ay diideen in ay qaataan lacagta shilinka Soomaaliga ee aan hayo ay tiri mid kamid ah hooyooyinka ku ganacsada suuqa weyn ee magaalada Jowhar. qabatay dharkii ciid ciyaalka aan u qaatay oo dollar laygu qiimaystay marka hore oon kaash anigana qof miskiin oo maqaayad suuq xoolaha ku shidaanahay kaashkii aan soo gadan soo aruuriyay dollarkeena maagay markii aan keenay 2,300,000 iyo waxaan watay $60,000 ku bedelanayaan dhahay 2,700,000 la dhahay meeqa lacag ay raacday lacagta culaaskii raacay meesha siiga yimid lacagtina wuxuu igu beesgaraysan yahay dollar oo ciyaalkii igu iideen. Mas'uuliyiinta maamulka gobolka Shabeellada Dhexe iyo kan degmada Jowhar ayaa shir jaraa'id ay ka yeesheen arinta lacagtani waxay amaro ku duldhigeen ganacsatada iyo kuwa sarifka waxayna ugu baaqeen in gabi ahaanba ay joojiyaan sicir barar ka dhashay isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga ah. Sarifka suuqa degmada Jowhar waxaa badatay biryahan in maartay magaalada dad badan oo khaas akhshaas qaar ay sameeyaan sixir bar magaalada ay sixir barayaan sarafka ay kordhiyaan ilaahdaan lacagta maartay waa falso ganacsiga ay maartay socodka magaalada iyo wixii ay xayireen lacagti xataa shilin Soomaaliga ay diidanay gaartay ma aqbalayno mana ka ogolaahayno cid allaale cid lacagta diidana waxay diidantaa qarnimada ummadda Soomaaliyeed ma ogolaahayno in ummadda la dhibaateeyo ma ogolaahayno in bulshadeenu baabaado ma ogolaahayno shilinkeenu shilin Soomaaliga waa kun ka shilin cid allaale cid diido tilaabo cadan ka qaadayna. Maxamed Cabdi Sheekh Muumin Xandow kusimaha gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellada Dhexe oo soo xiray shirkani jaraa'id ayaa laamaha amniga amray in ay tilaabo cad ay ka qaadaan cid diida isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga ah ee gabi ahaanba Jowhar laga diiday. dadkii ganacsatada ahaa ee ummadda u ahan weyneed ee maanta sameeynaysa in ummadooda baaba'daan ka shaqeynaya waxaa dhacday in lacagihii dawladda ay ugu jiray proposal ugu jiro la diyaarinayo in maanta la yiraahdo lacagtaas soo socoto waxaan ku ganacsanaynaa oo kaliya lacag dollar annaga waxaan leenahay lacagta dollarka anagu Mareykan ma nihin reer Mareykan iyo Mareykan cidii jecelna waxaan leenahay tikidkii fiisooda raasada annaga ummadda Soomaaliyeed aan nahay gaasada degmada Jowhar joogna gobolka Shabeellada Dhexe joognaa ciidan ka yeelayna malaha in dadkeeni oo maanta 85% dad tacbata ee xoogooda ku xamaasho kistay soo shaqeysteen ama jiwaar ku soo fashteen ama waxyaabo kale ay ku soo qabsadeen in la yiraahdo maanta waxba kaaga iibsanayno cid ka yeelayna malaha waxaan amreynaa dhammaan laamaha amniga gobolka iyo kan degmada Jowhar cid alle cidii diiday lacagta shilinka Soomaaliga ka hortimaada wax ku iibsamayna dhahda sarifka ku qaali garaysa ee sidaan ku ogeynay gobolka ugu shaqeyn jiray sarifkiisa mid ka sarmarsa sameeysa waxaan amreynaa in la keeno saldhiga xabsiga in la keeno. Tan iyo markii ay dawladda dhexe ee dalka ay soo bandhigtay nashqada lacag uu dalka uu yeelanayo waxa gabi ahaanba gobolada dalka Soomaaliya laga dareemayaa guuxa iyo hoos u dhaca isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga ah. Cabdifataax Ahmed Maclow, Cabdifataax Zaki, Bulsha TV, Jowhar.